walaalayaal waxaan marti idinka nahay inaad magaceena iyo sharafteena iyo karaamadeenna kor u soo qaadaan oo ummadaha aynu wax la leenahay ee aan la tartamayno aad inaga giijisaan oo aad kaftanka inoo hagaajisaan oo aad saamiga inoo biirisaan oo aad kuraasta ugu sarreeya dalka aynu doonano waxaan ku gaaraynaa walaal waa codka aan isla garanaynee sidii aynu ku heli lahayn waa diiwaangelinta kaarka codbixiyaha oo aan wada qaadano oo aad intiinaasi fariinta intaad qaadaan gaadhsiisaan waxaan baaq u dirayaa dhalinyaro qurux badnayd oon ka arki jiray miidiyaha oo raadin jiray saami tay maanta saamiga ku raadinayeen waa diiwaangelintan haddaana diiwaangelshanayn oonad cod bixin karin maxaad saami ku helaysaa reer awdalow reer saylac reer gabilay anoon kala reebayn dadkeena ku nool galbeedka waxaan leeyahay walaalayaal ayaan isdiiwaangelino ururka haweenka ee NAW oo muddooyinkii u dambeysay gobolka Awdal iyo nawaaxigeeda ka waday sidii ay bulshada ugu baraarujin lahaayeen in ay isdiiwaangeliyaan ayaa maanta xarunta dowladda hoose magaalada Boorama kulan kula qaatay gudiyada xaafadaha magaalada Boorama iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorama kulankan oo ujeedadiisu daarnay sidii bulshada loogu baraarujin lahaayeen in ay isdiiwaangeliyaan ayaa waxa goobjoog ah mas'uuliyiinta haweenka ururka NAW iyo xildhibaan Axmed Khayre Maxamuud oo ah gudoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada ugu horeeyna waxaa madasha ka hadashay Safiyo Hufan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee NAW ee gobolka Awdal iyo xubno ka mid ah ururka waxaana bulshada ugu baaqeen maanta waxaan dhammaanteen isugu nimidnay mowqif kaliya aad oo wala leenahay ma aha mowqif qof kaliya aad leeyahay sidoo xildhibaanku soo sheegay waa mowqif gobolkeena oo dhanka wala tirsan mi iyo magaalaba inaan isxasuusino oo isku yeerno oo isku wacdigelino awalan baabuur baa la qaadan jiray oo la wareegi jiray baabuurtii maanta inagu yaraatay cagteena ku maraynaa meel kasta inaga iyo annagaba waxaan doonaynaa waa tartan baa maanta la inagula jiraa ma aha cod qof la inaga siinayo xildhibaanna uma codaynayno dumarna looma codaynayo ragna looma codaynayo tartan baa la inagula jiraa gobolkeenu waxa uu soo baxo uma bari wax ku doonanayna maantana inaga maxay ahayd isku hayna guusha inta badan guusha waxa keena waa haween iyo odayaal iyo dhalinyarta inta badan runta hadii la sheegana haweenka u badan hawsh waxa maanta la isugu keenyay kuyuuga inaga un ba ku soo noqon habeen iyo dheeraar ku jirna sida awal baad kuyuuga u galeyseen ayaan maantana doonaynaa walaasheena kale inaga maqan inaan fariinta gaarsiino walaaleena kale suuqa fadhiya meheradaha kale jooga inta caruurteena yar yar ee maanta qaadanay 10 jir noqonaysa inta miyiga joogta inaan fariin isgaarsiino un baan isugu yeernay maanta oo wadda gobolkeena aan maanta mi iyo magaalada codkeen dheer iyo cod gaaban bay naga gaadhaadu ilaahay insha Allah waxaan baaq u dirayaa dhalinyaro qurux badnayd oon ka arki jiray miidiyaha oo raadin jiray saami tay maanta saamiga ku raadinayeen waa diiwaangelintan haddaana diiwaangelshanayn oonad cod bixin karin maxaad saami ku helaysaa reer awdalow reer saylac reer gabilay anoon kala reebayn dadkeena ku nool galbeedka waxaan leeyahay walaalayaal ayaan isdiiwaangelino aynu isdiiwaangelino kaftanka yaan la inaga helin yaynaan cabasho uun saami baan rabnaa inaan odhane aynu isdiiwaangelino codkeena cidna yaynaan siin xisbina yaynaan u cararin maanta xisbi maaha maanta xisbi ma joogto xildhibaan ma joogto cid sharaxan ma joogto waa tiradii codkeena aynu soo saarno isdiiwaangelino marka aan waxaan leeyahay dhalinyarada hal la qaato kaarka hal la isdiiwaangeliyo fursado badan baa ku xidhan maadaama mustaqbalkii dhalinyartuba ku xidhan yahay kabari doonaya inuu soo sharxo tirada bay ku xidhan tahay marka aan waxaan leeyahay hal isdiiwaangeliyo caasimada labaad baan kula tartamaynaa togdheer taana tiradanaynu ku helaynaa marka gobolka tiradiisii aan ka dhawaajino bal qofka doontaba adigu code qofka doontaba dooro bal horta kaarkii wan la qaato iminka maanta halkan inta fadhida waa labeentii bulshada waa gudiyadii xaafadaha marka waxaan leeyahay dib aynu noqono maanta wacyigelinta iyo waxa hawl aynu siniri inaan halka kaga kicini bulshadii aan ku celino dhaxda aan xidhanno inta hadhay bal goobaha aan tagno waxaan kula dardaarmaya oo dadka reer awdalna kula dardaarmaya seelal awdal iyo maxaragtay gabilay inay isdiiwaangeliyaan oo tiradooda la soo baxaan oo tayadooda la soo baxaan oo ay dadka la tartamaan meesha tartan baa ka socda gobolada war barbarkay ka baxda waa bakay laqan reer Booramo waxaan ka codsanaynaa oo idin sheegaynaa inaad isdiiwaangelisaan waxa weeyaan walba meeshuu joogo qoyska uu ku nool yahay inta ma aragtay goob ah halaga hawlgana lahayn anigu oo kaarka hal la qaato lagama badna barakada la iskama qaado lagama badna
gabadh baa tidhi inan kaa maaragtay inantayda qaba kama dhali waa inuu hakranayaa bay tidhi arba ka warrama war waan hakranaynaa laynagama badna runtaan isku sheegno nin walba kaarka ka qaato gurigiisa ha ku haysto uu anfacayaa waxa weeye isdiiwaangelintu gobolkan awdal haddii la tiro koobo guryaha ayaan ahayn 157 guryaha boorama jooga ku yaala ayaan 157 ahayn 157 kun oo guri baahina way ka badan yihiin waa degmada boorama marka gurigiiba ma qof baa ku noolaanaya gurigiiba ma qof baa ku nool waxa weeye isdiiwaangelintu danteena weeye inagu haddaynu nahay haddaba hogaamiyayaashii bulshada afarta degmada boorama magaalada boorama haddaynu nahay fadhigaan ka sare kaclo waxa weeye waan ognahay waxay naga sajilaadla ama waxay nagala maaragtay kaararan haysanin waan ognahay xaafad waliba way ogtahay inta aan kaaraysanin dumarkeennu way ogyihiin odayaasheennuna way ogyihiin waxa weeye oo kaloo laynagu xantaa kaarka waa la qaataa laguma codeeyo taana waa laynagu xantaa had iyo goor markaan waxaan leeyahay kaarkaan qaadanno dhowr iyo 10 jirka carruurtiiba waan qaadan karnaa 4 iyo 10 3 iyo 10 5 iyo 10 wax kasta waan qaadan karaynaa haddaan dacwoonana ugu dambeynna waxaa kulanka soo afmeeray xildhibaan Axmed Khayr Maxamuud oo ah gudoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha bulshada dowladda hoose magaalada Boorama waxa halkaan aan isugu keenaynay ujeedadiisu waxay tahay anaa ku yiri dadweynaha waynu isugu yeeraynaa xafiiska dawladda hoose aan u yeeraynaa xafiiskoogiya halkaasaan iyagoo wada jooga kula hadlaynaa halkaasay iyagna fariinta ka qaadayaan oo ay xaafadihii gaarsiinayaan sidii baan isku afgaranay oo aan xarunta uga dhignay inaynu shirkeena ku qabsano shirkeenuna oo wacyigelinta qof uma socono qolo uma socono cid gaar ah uma socono qadaraas leedii kuma soo qaadan deeyaadi ku soo qaadan qof leeyahay wardanahaaga garo danahaaga garaa lagu leeyahay walaalayaal waxaan marti idinka nahay inaad magaceena iyo sharafteena iyo karaamadeenna kor u soo qaadaan oo ummadaha aynu wax la leenahay ee aan la tartamayno aad inaga geejisaan oo aad kaftanka inoo hagaajisaan oo aad saamiga inoo biirisaan oo aad kuraasta ugu sarreeya dalka aynu doonano waxaan ku gaaraynaa walaal codka aan isla garanayne sidii aynu ku heli lahayn waa diiwaangelinta kaarka codbixiyaha oo aan wada qaadano oo aad intiinaasi fariinta intaad qaadaan xaafadihii kala duwanaaad ka timaadeen adoo gurigaaga ka bilaabaya aad gaarsiisaan waa idinku Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boorama.